واتما مروده الصومالية دي عانكا كعالمكا بلسياني ودا قوني الصوماليدو. مقعيدو وسارة محمد عبد المجيد oo ku magac dheer Iimaan sanadkii 1955 ayay ku dhalatay dhulka Soomaalida aabaheed waxa uu ahaa diblomaasi halka hooyadeed ay ahayd doktorad reerkoodu waxay markii dambe u guureen magaalada Nairobi Iimaan wax waxbarashada ka bilowday jaamacadda Nairobi maalin maalmaha kamid ah waxa arkin in ajnabi ah oo sawir ka qaaday si ay uga mid noqoto modelka markii dambena waxay tagtay dalka Mareykanka sanadkii 1973 ayay ka mid noqotay dheer xayeysiiska oo ay muddo ku jirtay waana halkii iyadii bulshada caalamku ay isku barteen walow ay markii dambe ka fadhiisatay xayeysiiska waxay isla sanadka noqotay jila filmo dhowr ah ay ka soo dhex muuqatay dalka Mareykanka sanadkii 1992 ayay ka mid noqotay hees uu lahaa fanaankii caanka ahaa ee Michael Jackson heesta waxa loo odhan jiray Remember the Time isla sanadka waxay iskuulsadeen jila iyo fanaan caan ahaa oo loo odhan jiray David Bayo waana ninka iminka ay ku abtirsato maadaama oo uu hiibay hantida ay haysato qaar kamid ah ninkeedu waxa uu geeriyooday sanadkii 2016 Iimaan maanta waa iskaga hadhay jilinkii iyo dhammaan shaashadihii ay ka soo muuqan jirtay waana ganacsato iyo samafalo weyn oo caawisa caruurta dunida saddexaad iminkana waxay u doodaa xuquuqda midabka madowga iyadoo hablaha madow ku dhiirigelisa inay ilaashadaan midabkooda oo ay ku faanaan inta badan Iimaan waxa lagu soo marti qaadaa goobaha bandhigyada ee ay ku kulmaan dadka xiiseeya in la wareysto shakhsiga mudanka daadeedu maanta waa 68 sano